وتهداوديال أفريكا تي في 4 أيد نقل سعتان تي فيجا وحشرفوه إن ورئيس كوبن لا يشو مانتا مدحوينها جمهورية الصومالية مدن حسن شيخ محمود أو بوقشكو يمد دلك السودان إمك وحنا كسو قلنا جودها جامعة إفريقيا العالمية إذاعة إفريقيا جامعة تابع سن إيو أفريكا تي في 4 أيدنا نقدا ونسن مدن مدحوين أفريكا تي في 4 وحوكمي دي هاي كوح تي في أو لهدلا أفريكا لوقدا أفريكا نكوهدلا أفريكا فورنا وحكوهدلا لوقدا سوماليا مركورة شرف ينوتين الكوسو دوين تي في كسرو ما سنتين دوا ما سنتين وتها مدحوين مركو ugu horeysa waxaan ku weydiinaynaa socdaalka ku timid dalkan Suudaan qaybtiisa arrimaha bulshada maxay tahay siyaasadda marka laga soo tago maadaama TV-ga arrimaha bulshada focuska uu saaro bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah aad iyo aad u mahadsantihiin Suudaan booqasha ku nimiday rasmi ah aad iyo aad lagu soo dhaweeyay dalkan Suudaan iyo Soomaaliya cilaaqaad aad iyo aad u ballaaran ayaa ka dhaxeeya cilaaqaadkaasi dhinacyo badan uu leeyahay dhinacaad iga weydiisay yani dabcan dadka Suudaan waxa ugu weyn waxbarashada xaggeeda kaalmada ay Soomaaliya ka kaalmeeyaan oo maanta meel aad iyo aad u sareysa maraysa haddana maraysa in jaamacadaha Soomaalida iyo jaamacadaha Suudaan la isku xiro waad ogtiin maanta Soomaaliya waxa jooga dhaqaatiir badan macallimiin badan injineero badan oo dalka Suudaan ka soo baxay fursadaas Suudaan Soomaaliya ay siisay caalamka meelaha laga sii aadi ugu yaryihiin marka arrinta in la sii xoojiyo oo la adkeeyo ayaa qayb weyn ka ahayd booqashada مدن مدحوينه dalkan Suudaan waxa ku sugan aqoon-yahano fara badan oo wax ka barta in ka badan 5,000 arday waxa kamid tahay aqoon-yahanada Soomaaliyeed nin aqoon-yahana oo madaxweynihii dalka ay tahay marka maxay tahay fariinta u diraysid ardayda Suudaan joogta iyo kuwa kale guud maadaama dalka baahi badan uu qabo aqoon-yahano inay helaan aragti dheer sidoo kale waxaan rabaa inaan ardayda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan kuwa Suudaan jooga aan u sheego yani fursadaad hesheen oo dhalinyaro badan aad iyo aad u tiro badan oo Soomaali ah aanay helin dhowr milyan dhalinyarada Soomaalida lagu qiyaasaa intaan hadda aad fursada hesheen waa dhowr kun marka fursadaas aad hesheen inaanay dayacmin oo aad ka faa'iideysataan oo waxbarashada sida ay tahay rasmiga aad uga faa'iideysataan waa rabnaa waan idinku adkeynaa oo kula dardaarmayna waxa kaloon aad iyo aad idinku dardaarmaya gaar ahaan ardayda Suudaan joogtay in nidaamka iyo shuruucda iyo dhaqanka iyo maxaan ku raadaya habnoolaadka dalkan aad loo ilaaliyo nidaamka iyo shuruucda dalka in la ixtiraamo hab dhaqanka iyo maxaan ku raadaya dhaqanka dadka Suudaaniyiinta ah in aad loo ixtiraamo in maxaan ku raadaya yani la noqdo sida ayaguba wiilashoodii oo kale inaad tihiin iyo gabdhahoodii oo kale inaad tihiin ay gacan idinku fidiyaan idinkuna inaad u dhaqantaan sidaas oo kale aad iyo aad ay muhiim u tahay dhaqanka iyo taqaaliidda iyo shuruucda iyo qaab nololeedka dadkan iyo dalkan ay leeyihiin in aad iyo aad loo ilaaliyo taasa ugu muhiimsan oo aan aad iyo aad idinku adkeynaya wata maadaama nin aqoon-yahan aad tahay dalka Soomaaliya muddadii aad xukumaysay ma isleedahay qaybta waxbarashada horumar ay Soomaaliya gaartay ama wax badan waqti waa siisay iyo fikir waxbarashada inay horumarto si loo helo dad wax bartay dabcan Soomaaliya meel aad iyo aad u fogay ka timiday waxbarashada Soomaaliya waxay u badan tahay waxbarashada gaarka ah oo gaarka loo leeyahay dugsiyada jaamacadaha intaba sanadkii 2013 ayaa ahayday markii ugu horeysay Soomaaliya laga furo dugsiyo public ah oo dawladdu ay leedahay oo macallimiintooda dawladdu ay mushaar siiso oo ardayda dhiganaysa aan lacag laga qaadaynin fee yani ama waxa afqalad ugu yahay tuition fee aan laga qaadaynin markii ugu horeysay ay ahayd sanadkii 2013 oo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed dib loo furo ayadoo leh 6 kulliyadood 6daas kulliyadood hadda dad arday ku dhow 1000 arday ku dhow ay dhigtaan oo aan ayadana lacag laga qaadan aan lahayn tuition fee aan lahayn sidoo kale ardayda dugsiyada dhigataay sidoo kale 200,000 oo arday ay ku dhow yihiin ayagana sidoo kale laga maado marka wali baahida ardaynimo ee xag iskuul iyo xag jaamacadeed jirta aad iyo aad ay intaas uga ballaaran tahay laakiin waa bilow marka bilowgaas fiican uu socdaa sanad walba way sii kordhintada dawladda Soomaaliya waxa waajib ku noqonayso ku ah awoodeeda markii saamaxdo dhalinyarada Soomaalida oo dhan inay tacliin siiso تعليمت مركز لقى صوت مرة قارو حلقة يا با إن أرد مركز أي واحد برشة دمستان يجرت عبشة دنك شقلا أنت أرما سياسات إذا كيدك سنة وإنجاز أتكي جارتين يكو إذا كيدك سنة هذا كده مجرا والله طبعا دلكم مركز صورنا بدوبه با دبلسكي سائمانيو دبلسكي مركوي ما هذا الشقاوي بدنا عبور مايو دول الصومالي دلك إننا بديسو فرصة الشقنا يا أبورتو
siyaasadaheeda ayay ka mid tahay, siyaasad cadcaday ka leedahay. waxaa intaas dheer waxaan aad iyo aad uga shaqaynaa caalamka kale sida caalamka carabta ee walaalaheen ah in ay dhalinyarada soomaaliyed fursad shaqo siiyaan, ayadoo hadda sacuudi arabiya noo ogolaatay, qatar sidoo kale muxuu ahaay ogolaasho mabda ah oo farsamooyinka iyo wixii iyo ay ka dhiman yihiin aan ka qabnaa. imaaraadka muxuu ahay wadahadal aan la wadnaa in dhalinyarada soomaalida banaankana fursado shaqo looga abuuro, dalka gudihiisa iyo dibudhiskiisana fursado looga abuuro. marka aad iyo aaday muhiim u tahay arrintaas, laakiin dee shaqa oon hawl u badan ay naga rabtaa iyo dulqaad, waana gaarina insha allah. waa tahay waxaan rabaa anigoo tixgelinaya waktigaaga qaaliga ah iyo howlaha ku yaal su-aashii ugu dambeysana ku weydiiyo dhanka shaqa abuurista marka laga hadlayo sacuudiga soo hadal qaaday doodo badan ayaa jira, maxaa ku qancin lahayd dadka ku daawanaya ee mawduucaas ee hadalka ka keenay? aad iyo aadan dee uga xunnahay doodaha qaarkood sida loo dhigaayo lasoo qaadayo gabdhaha soomaalida ah. gabdhaha soomaalida haddaba way safraan, keligooday safraan, ayagoo dowlada aanay dirinay safraan, ayagoo maxaan ku raha xuquuq ay leeyihiin cid xuquuqdooda ilaalinaysa aanay jirinay safraan, waa tahriibaan, badahay maraan, yamanoo dagaal ka socday inta ku dhex lugeeyaanay sacuudi arabiya muxuu ahay galaan. waxaasoo dhan hadda way dhammaatay, dowladdaa kafaalad qaaday, mas-uuliyaday leeyihiin, xafiisyo iyo dad mas-uuliyiin ah ayaa daba socda oo xuquuqdooda iyo waxooda ilaalinayo. marka waa sidaasaa arrimahaasi ma jirto gabdhaheenna wax dhibaata. dabcan dee haddaba dhibaataa soo gaarta, lakiin midda hadda soo gaarto sharciga sharciga ka baxsanay dhibaata ku gaartaa, laakiin sharciga dhexdiisa dhibaatadii kugu gaarto si aad u maaraysaad leedahay. annagu waxaan rabnaa dadkeennu sharciga dhexdiisa inay ku noolaadaan, ay ku shaqeeyaan. haddii dhibaata ku gaaraysana sharciga dhexdiisa dhibaataa ku gaarto si loo daba qabto iyo si loo xuquuqdooda loo raadiyay leedahay. halka hadda ayagoo tahriibiya duurka marayo lugaha inta laga xirta la adoonsado oo meel lagu haysto. marka dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay ha ka baxaan waxaas. gabdhaha soomaaliyeed way shaqo tegayaan, way soo shaqaysanayaan, ayagoo sharaf iyo karaamo leh ayna dalkooda kusoo noqonayan hadii alla yihahdo. dowladda soomaaliyana way ilaalinaysaa sharaftooda iyo karaamadooda. waa tahay aad baad umahadsan tahay. madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa oo waraysi kooban siiyey Africa TV4 oo aad daawanaysaan iminka iyo idaacadda Ifriqiya oo taabacsan jaamacadda Ifriqiya alcaalamiya. madaxweyne aad baad umahadsan tahay. jazakallahu khayr. barakallahu fiik.